wafdi ballaadhana uu hogaaminayo barasaabka gobolka Gabiley ayaa soo kormeeray goobaha qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka ee degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley halkaas oo si rasmi ah uga bilaabmay qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka Somaliland kalena fariin baan dadka u dirayaa dadweynaha degan dhulkan waxaan leeyahay diiwaangelintu waa muhiim ninka qaata waxa uu ku dagaalgelaya teeda labaad horumarka waxa lagu sameeyaa sida badan populationka meesha ka soo baxay way ka sii badanaya wixii ka dambaysa maantana in badan baan diiwaan gelinay dadka wixii loogu talagalay ee qaangaadhka ahaa iyo intaan weligeed bay isdiiwaan gelinin baa labada qaybood baan ka shaqaynaynaa ilmadado kana tirsan gobolka Gabiley 8 goobood meel kamidana ah waxa si toos ah uga furmay diiwaan gelintii codbixiyayaasha waxaan ku wacyi gelinaynaa markaa uguna baaqaynaa dhammaan dadweynaha ku nool jiidan qof waliba inuu isdiiwaan geliyo kan waxaan leenahay dadweynaha halkan waxaan sheeganaa inaad isdiiwaan gelisaan oo ka aad maxay ahayd ay timaadaan goobta loogu talagalay ee sanduuqu yaalo gobolkii oo dhammaystiran barasaabkii iyo meeyirkii iyo xildhibaanadiisii iyo guddigii diiwaangelinta u dhammaystiran waxaan rajaynayaa in dadku si wanaagsan isu soo diiwaangeliyaan joognaa goobtii ilmadado waa in xil la iska saaro waa in si fiican la isku abaabulo leenahay dadka kelmadaasoo ah isdiiwaangeliya taasoo aynu ku gaari karno horumarkeena iyo halkaan igsanayna aynu ku gaari doono anagoo soo marnay laba goobood oo Gabiley goob Arabsiya iyo goobtan oo ku taala ilmadado dadweynaha waxaan leenahay war Gabiley wixii galbeed ka xigay goobta iska diiwaangelinayaan waa goobtan ilmadado qof waliba yaanu ku iska sugin inay diiwaangelintu goobtiisa ugu imanayso goobta halkan ay joogaysaa nin walba soo dhaqaaq muwaadin waxaad xaq ugu leedahay inaad waxna doorato adigana lagu doorto marka muwaadinimadaada muuji marka qof kasta kaarka waxa ima doona mustaqbalka in jaamacadaha lagu soo rogo iskuulada lagu soo rogo shaqada lagu soo rogo kaarka qofkan haysan istifaan qaadan inuu diiwaan geliyo inay culays ku noqon doonto marka iyadoo dadweynaha waxaan leeyahay oo talo ku siinaynaa inaad qaadataan kaarkaasi waa ikhtiyaari laakiin qaranka iyo gobolka iyo midnimada dalkaba waa u faa'iido dad kale waxaan leenahay kaan ogeynoo ogow maanta oo maqal in diiwaangelintii bilaabatay halka kugu dhowna iska diiwaangeliw ka isdiiwaangeliyeyow ka aan isdiiwaangeliyeed og tahay baraaruji oo waxaad tidhahda waradooda soo diiwaangeli ku soo marnay goobaha kala duwan ee ay ka bilaabantay diiwaangelintu gobolka halkan oo ilmadado oo goobta afraad aan ku sugannahay goobaha kala duwan soo marinay si nabadoon oo qurux badan oo xasiloon oo dadku wacyi gashay yihiin ayay uga bilaabantay oo ugana socotaa hawshii diiwaangelintu baaqaanu xaggan ka dareynay fariintan ka dareenana waxay daaran tahay in si xoojino inta dadku adkeeyaan bulshadu isxil qaanto qof walbana kelmadii halkan laga yiri waaleeyo uu dareemo in mas'uuliyad shakhsiya ay ka saaran tahay sidii uu isku diiwaan gelin lahaa saddex goobood oo hore aanu soo marnay goobtani waa goobtii afraad waa ilmadado aanu ku boorinaynaa oonu ka codsanaynaa dhammaan deegaanada ku xeeran ilmadado iska diiwaangeliyaan oo ay si degdega u yimaadaan codkooda si ay u dhiibtaan haddii ilaahay idhaa waa xaq uu muwaadinku leeyahay inuu codeeyo oo uu doorto maamulka ay doonayaan inuu hogaamiyo muwaadin waa xaq dastuuriya oo aad leedahay oo aad go'aankaaga kaga gaadhayso masiirka waddankan iyo hogaamintiisa ciddii aad ku aamini lahayd xisbiga aad door bidayso musharaxaad u cadaynayso sidaas la mid ah magaaladaada iyo deegaankaaga iyo gobolkaagaba codkaaga ugu heeli si ay berritoola u noqoto mid aad masiirkaaga ku darsato haddii aanad kaarka qaadan waxa kuu codayn doona qof kale oo masiirkaaga go'aamin doona sanduuqa ay diiwaangelintiisu ka socotay ilmadado dee kala baydh in laga yimaadaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay in laga yimaado Sitiile waxaynu u baahannahay in Laaca laga yimaado waxaynu u baahannahay in laga yimaado Ceel Bardaale deegaanada ku xeersan oo dhan qofkii fursadda ka faa'iideysanayay inuu intaa isa soo dhibo ama soo luge ama gaari soo qaado intaa u dhabaraday xuquuqda aad leedahay inaad gudato arrintaas runtii idinku baaqanaa gobol ahaan ahmiyad aad iyo aad u weyn bay noo leedahay inaynu kordhinno ama waxa kor u qaadno tirada codeeyaasha inaad isdiiwaan geliso wax weeyaan macnaheedu waa inaad codayn karto hadhow mustaqbalka
inaad codayn kartana waxa kaaga xidhan arrimo badan baa kaaga xidhan haddaad gobolka Gabiley tihiin kow waxa weeyaan dad cod lebaad noqonaysaan oo la dhegaysto doodda ayay idin hagaajinaysaa khayraadka qaabka loo qaybsado ayaad kaga hadli kartaan gobolkeena Gabiley runtii 8 goobood komishanka qaranku uu asteeyay si wanaagsan oo nabadgelyo ah bay uga socotaa dadweynaha gobolka ku nool waxaan faraynaa in ay isdiiwaan geliyaan diiwaangelintaasina laba ujeedo waaweyn bay waa ku ladhan oo maanta ay xambaarsan tahay mid waxa weeye waa tan 13 urur lagu kala dooranayo 3 xisbi qaran lagu soo saarayo midna waa timid madaxweynaha lagu dooranayo diiwaangelintan labaas daaran tahay marka waxaan jeclahay in aad ka faa'iideysataan oo haddaad jeceshihiin in aad runtii 3 xisbi qaran aad taladooda wax ku yeelatid cidda wax ka soo saaraysa iyo haddii aad jeceshahay inaad madaxweynaha doorashada taladeeda wax ku yeelatid Muuse Xuseen Xasan Vibe TV gobolka Gabiley